السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لا صاحبي الكسر هذا عشر كنا ما نتبع كسر سنهاي conversation between doctor and patient. وهذا شيء كيس كده حياة دكتور يبكان إن شاء الله تعالى. أنت عشر كنا نقول قلنا عن كعصنا هنا الدياد نوع سبتها هنا سبسكرايب إنه صار في channel كا أو نشير جرس صاحب هذا سيوفايد سام فيديو عشان صدقين عشر كانت تسوق قلنا conversation between doctor and patient. wada sheekaysi ka dhaxeeyo dhakhtar iyo bukaan. Conversation wada sheekaysi between ka dhaxeeyo doctor dhakhtar and the patient iyo bukaan. Doctor wuxuu leeyahay hello, haye, what can I do for you? Maxaan kuu qabtaa? Patient wuxuu leeyahay bukaanku I am suffering from fever. waxay asiibtay ama igu dhacay fever, qandho, and the sore throat iyo dhuun xanuun since yesterday. shalay laga bilaabo, shalay ilaa hadda qandho iyo qoorta ay xanuunayso, dhuunta ayuu yiri, guri mareenka ay xanuun ayuu yiri. Doctor wuxuu yiri do you have cough problem also? ma leedahay hergab dhibaato macnaha sida hergabka camal ma leedahay ayuu ku yiri. Patient wuxuu yiri bukaanku yes I have, waan leeyahay hergab ama hergab igu dhacay. Doctor wuxuu yiri dhakhtarku do you have ma leedahay oo ku dhacay macnaha ma leedahay any other symptoms, calaamadooyin kale. Symptoms waxa la calaamado. Patient wuxuu yiri I also feel, sidoo kale waxaan dareemaa headache, madax xanuun, and shivering iyo qarqar. Doctor wuxuu yiri dhakhtarku have you taken any medicine so far? wali wax daawo ah ma qaadatay ayuu yiri. Doctor wuxuu yiri have you taken any medicine so far? wax daawo ah ma qaadatay ayuu ku yiri. Patient wuxuu yiri bukaanku no doctor, maya dhakhtarow wali ma qaadan ayuu yiri. Doctor wuxuu yiri dhakhtarku let me check and borrow your temperature and heerkulkaaga. Let me check and borrow ama fiiriyo your temperature heerkulkaaga. Let me check and check gareeyo your temperature heerkulkaaga halkuu maray. Markuu baaray kadib ayuu yiri now the fever is 101 degrees. hadda heerkulkaaga ama qandhadaadu waxay maraysaa 101 degree ayuu maraysaa ayuu ku yiri. Patient wuxuu yiri is there something serious doctor? wax saas ah ma jiraan ama wax halis ah ma jiraan dhakhtarow ayuu yiri. Dhakhtarku wuxuu yiri no, dhakhtarku wuxuu yiri don't worry, hawalwalin, take the prescribed medicine. Take the prescribed medicines. daawooyinka lagu qoray qaado. Prescribed medicines waxa la daawooyinka dhakhtarku soo qoray Allah. Medicines, take the prescribed medicines. daawooyinka lagu soo qoray qaado 2 times a day, maalintii 2 jeer, for 3 days ilaa 3 maalin, and get some rest. sidoo kale nasa ayuu ku yiri. Patient wuxuu yiri bukaanku thank you very much doctor. dhakhtarow aad baad u mahadsan tahay. Doctor wuxuu yiri welcome, waad dhowdahay ama soo dhawow, get well soon, caafimaad ayaan ku rajeynayaa ayuu ku yiri. marka insha Allah taala cashirkeena maanta halkan ayuu inoo yahay. fadlan cashirka dad ka heshay like noo saar, dhiirigelin ay noo tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.